الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan halkan uga soo jeedinayaa waano iyo talo cid kasta oo codkaygu gaadhayo muslimiinta ka mida waxaan ka waaninayaa maalinta loo yaqaano Valentine's Day ama maalinta jacaylka adduunka waxa loogu yeero oo runtii ah shay munkar ah oo waqti sanad walba soo noqnoqda dad badan oo muslimiina oo aan aqoon sharciyeed u lahayn meelaha dhibku uga imanayana aan garanayn laga yaabo inay u dabaaldegaan ama ay muujiyaan ka qaybgalayaan maalintaas Valentine's Day la yiraahdo ama Ciidul Xubbi loo yaqaano ama loo yaqaano Yawmul Quddiis Valentine magacyo kala duwan leh waa dabaaldeg gaaleed oo Kirishtaanku ay leeyihiin oo ku beegan sanad walba 14 Febraayo marka la eego kaniisadda reer galbeedka ama 6 Yuulyo marka la eego kaniisadda bariga dabaaldegaas oo loo asteeyay in la nooleeyo ama la xusuusto geeridii ku timid ninkii ay yiraahdeen wuxuu u dagaalamay diinta Kirishtaanka si uu u difaaco taas ayaana loo dilay ninkaas oo magaciisa la oran jiray Valentiis kana mid ahaa wadaadada waxa weeyaan fidiya diinta Kirishtaanka arrinkaasi markaa dabaaldega noocaasi iyo in maalinta la weyneeyo ama la muujiyo in laga qayb galayo sharciga alle wuxuu ku yahay muharram iyo waxaan banaanayn waxaanu ka mid yahay mushkiladaha ay la timid cawlamada ama globalizationku mushkiladda uu caalamka ku soo kordhiyay oo in waxa weeye dadka loo soo waarido waxaanay abiyo isru lahayn waxaynu niri waa muharram oo sharciga alle kuma banaana sababtuna waxa weeye ugu horeyn waa sharciyeyn la sharciyeynayo ciid ama maalin ciid laga yeelanayo sanad walba diinteennana aan ka mid ahayn Abu Daawud rahimahullah Imam an-Nasa'i iyo qeyrkood waxay ka soo wariyeen nabiga calayhi salaatu wassalaam xadiiska Anas radiyallahu ta'ala anhu leeyahay qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madina nabigu calayhi salaatu wassalaam Madina ayuu yimid walahum yawman yal'abuna bihima iyagoo ay leeyihiin dadkii Madiina deganaa ay aan muslimiinta ahayn intaanay islaamin ka hor 2 maalmood oo ay dabaaldegaan kadibna nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wassalaam labadan maalmood ee dabaaldegaysaan laba ka khayr badan ba laydinku bedelay oo Ilaahay idinku bedelay waa ciida weyn iyo ciida yar ama ciidul fitriga iyo ciidul adha waxa kale ku jira arrinka raali ahaansho laga raali noqonayo diin aan diintii islaamka ahayn allana wuxuu yiri waman yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil aakhirati min al-khasirin qofka dalba diinta islaamka aan ahayn waxa weeyaan dalba ama raadiya waxa weeyaan Ilaahay ka aqbali maayo aakhirana wuxuu ka mid noqonayaa kuwa khasaaroobay waxa kale oo ku jira in la isu ekaysiinayo Kirishtaanka in la isu ekaysiinayo ama gaaladii in la isu ekaysiinayo la raaciyo nabiguna calayhi salaatu wassalaam xadiiska Abi Daawud uu warinayo Abdullah ibn Umar ibn Khattab ونبي كورني عليه الصلاة والسلام وحلي نبي من تشبه بقوم فهو منهم قفك قولي سوى كيسية وحي لقاريهين سوى كيسية فهو منهم قولدا سيوك مديهي علماء قاركود نحيسك وحي كقاتين سوى كيسين تلي سوى كيسية قالدا إن النقور سوى يران محرم هدي فرحيتها اللي أحان شيء كتير تيشعلنا أهرن كي كسوين لتعلانا يانا وقال لمو وحكى النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعون سنن من كان قبلكم raacdeen oo dabagasheen wadooyinka kuwii ka horeeyay xataa haday waxa weeye god galaan waad ka dabagalaysaan saxaabadu way weydiiyeen waa kuwaba waa Kirishtaanka iyo Yahuudda ayuu yiri nabigu calayhi salaatu wassalaam xadiiska Bukhari iyo Muslim soo saaray waxa kale oo ku jira dabaaldega maalinta loo dabaaldego in la isugu yeerayo ama la faafinayo xumaanta iyo jacayl aan sharci ahayn oo waxa weeye habla iyo inama aan waxa weeyaan xalaal soo ahayn inay waxa weeyaan wada dabaaldegaan ama ay wax isu diraan ama ay isjecel yihiin ay muujiyaan iyo waxa weeyaan xiriir aan sharci ahayn waxa kale oo kamid ah
in faaxisho iyo zina iyo xumaan ay dariico tahay oo marka waxaas waxa weeye shahawaadkii iyo dadka qulubtooda wixii ku kaydsanaa marka la dhaqdhaqaajiyo kelmado iyo hadallo iyo sawiro iyo wax la mid ah isu dirana waxay sahlaysaa in ay waxa weeyaan xaraan meeshaas ay ka dhacdo ama ay zina wado u noqoto isku soo xooriyo arrinkaasi arrin bannaan ma aha qofka muslimkaana uma bannaana inuu ka qayb qaato nooc kastoo ay tahay ka qayb qaadashadu haddii ay tahay sawirro laysu diro hadday tahay maryo cascasoo la gashado hadday noqoto wadnayaal iyo wax laisku sawiro kullu haadaa waxay tahay waxaan sharciga alle ku bannaanayn ilaahay waxaan weydiinayaa muslimiinta diintooda inuu ilaaliyo xaqana uu tuso wallahu tacaala aclam وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.